screen record so marka waxyaabaha inoo muhiimsan shala waa sheegay ko maxaa waaye pageska aad ay muhiim u tahay because of page walba aad samaysay asaga ayaa kasoo muuqan doona dashboardkaaga kan xigta waxay tahay designka marka aad ay muhiim u tahay hadday noqoto colorkii oo yacni websitekaada qofka markuu imaado aad ku qurxin lahayd colorka hadday noqoto qoraalkii meesha ku saarnay nuucu uu yahay waxyaabahaas dhan waan ka hadalnay so marka maanta xooga waxaan saaraynaa insha allah mana ku daahi doono at least 40 minutes ayaan ku jiraynaa pageska tigana marka waxaan rabnaa pageska maanta inaan qurxino so marka pageka koowaad inoo furan waxaa waaye waa wordka ku qoran waa iska tirtiri karnaa any name aa la bixi karnaa click meesha korkiisa ku dhufan karnaa double click then double click markaa ku siino ama waxaa ku dhufan kartaa meesha ay ku qoran tahay calaamadda serinka kadib waa bedeli kartaa waxaan ku qori karnaa maxaan dhahaa what we do tusaalo kale waxa aan sameyno what we do af Soomaali xataa waa ku qoran kartaa qasamaas websitekaada inuu ahaado mid English ku qoran so Soomaaliyan ku qoran karnaa waxaa dhihi karnaa inkastoo af Soomaali dheer yahay laakiin hadda waxaan tusaale u qaadanaynaa English oo kaliya what we do waxa aan sameyno qofka markaas hadhow markuu arko navigation-kan waxay noo noqonaysaa is a same thing aan gelinayna waxa aan sameyno so marka hadhow what we do qofku markuu ku dhufto wuxuu arkayaa waxa dhan aan sameyno website-keena because of client-iga markay website-kaada imaadaan they want to see waxa meesha ka socdo page-ka labaad noo furan about waaye so marka about keligeeda double click aan ku sameynaa marabo about keli dadka inay arkaan marabo waxaan ku daraynaa about us waxa aan sameyno kadibna waxaa waaye Instagram linkiga la soo saaray all social media waa saaran kartaa laakiin aniga dadku kulama taliyaan inay Instagram-kooda header-ka ay saartaa meesha kore waxaa badanaa la soo geliyaa website-yada hadda aragteen qaybta ugu hooseyso at the bottom qaybtaasi ayaa marwalba la geliyaa soo marka iska tirtirina uma baahnin hadda qaybtaad ujeedaan delete-ka ay ku qoran tahay ayaa delete ka siin karnaa haddii kalena double click inaad siisid meeshaan setting ay ku qoran tahay ayaa delete linkiga dhigi kartaa labaduba samayn kartaa laakiin automatically xagga ayuu inoo yaalaa delete aleena because waxaa rabnaa qaybta hoose inaan gelino insha allah hadda uma baahnin so waxaan ku darsanaynaa another page waa badanaan doonaan so marka waxay noqon doonaan tusaalo kale waxaan dhihi karnaa haddaan rabno maxaan gelinaa blog oo kale tusaale haddii aad rabtid websitekaada inaad blog qayb kusoo dirtid oo qoritaanka oo kale blogaas aan kusoo daraynaa so marka blogyada way badan yihiin midaa ka tuurinaysaa markii markaas qanciyo oo kale lasi koowaad maa dooranaa mise labaad mise saddexaad idinka mid doorto kee dooranaa blog asxaabta ku jirto clubhouse waxaan idinka codsanayaa inaad tagtaan Facebook maxaa tagtaan Facebook page-ka Somali Innovation groupka linkigiisa halkaas uga heshaan insha Allah so marka ani labaada ila qurxan xoogo because of option wuxuu ku siinay afar xabo so marka labaadko kala iska dooranayna labaadka markaan doorano blog waa mogtahay so marka blog 2 meesha ku qornaan lahayd waxa leenahay just blog clicks then blog clicks markaan doorano hadhow waxaan sameynaynaa asxaabta insha Allah ku jirto maxaan dhahaa blog waa kana soo kale waxaan ku daraynaa blog kale soo marka pageska aad u fara badan yihiin so waxaan rabnaa inaan ku darsano tusaalo kale hadda waxaan kasoo qaadaynaa kow waan haysanaa blog horta blogga hoos aan geysanaynaa marna inuu kor naga aado waxaan rabnaa kow dadka inay arkaan anaga options kale what we do number 1 waaye number 2 na kana gashanaynaa wax walba waa drag and drop soo ujeedaan what we do number 1 blog aku xijinayna waxa rabnaa about us iyo contactiga inay u dambayso the last one ay noqoto so asxaabta ku jirto clubhouse-ka waxaan ka codsanaynaa Facebook page-ka inaad tagtaan Facebook group-ka Somali Innovation si linkiga zoom-ka u heshid asxaabtiina kalena zoom ku jiro waxaan ka codsanayaa asxaabta dhan inaad la wadaagtaan la share gareysaan so marka okay Facebook Somali Innovation Facebook group عادي فيسبوك جروبك عادي في Somali Innovation فيسبوك جروب وقرر دان كليك سي واركز على لينكي هالكاس اسوق لي ايوه سو marka waxaan sameeynaa blog waan qoranay still waxaan u baahanaa pages badan because of pages-kaada hadii badan waa muhiim hadda website-yada inta ugu badan oo kale pages-kaada u farbinay soo marka waxaan tegaynaa tusaalo kale waxaan rabnaa inaan ku darsano optiono badan haysanaa saa idin sheegay haddaan rabno mid eber ku darsan karnaa waxaan ku darsan karnaa mid journal ah oo kan oo kale ujeedaan mid walbo aad dooratid sample-kiisa kaaga soo bixi karo kan saddexaad waa appointment tusaalo kale haddii aad rabtid clients-kaada automatically appointment inay kaa qabsadaan kaasaa tegi kartaa
subax yarbiyan cabiya hadaartu waxaa tagi kartaa abaar aadsan aad samaysan kartaa oo aad u qurux badan hadhow xaggaasan soo gelin doonaa contact asa ku darsan kartaa pageka oo dadku kula soo xiriiri doonaan waana muhiim inaan ku darno contactiga asaa kala baran marka mid saan u eg mid taas ah oo social media wixii raacsan iyo mid noocan ada options kale soo marka mar walbo kan koowaad aad doortaa because of qofku waxaa la rabaa contactiga markuu soo gelinayo inuu geliyo first name last namekiisa emailkiisa hani haddii aad rabtid inaad ka faa'iidaystid Facebook groupkooda tag Somali Innovation si aad u hesho linkiga sidoo kale waxaad heli kartaa qaybta service-ko kale waxyaabaha aad sameeyay sidoo kale aad u fara badan tahay waxa option haystaa qaybta membersko kale sidii qofkii shalay ka hadlayay memberska kaliya dadka oo tusaale kale lacagta ka qaadayso website-kaaga ama dadka maxaan dhahaa waxa ay haysid member ahaan u helaan ee dad qof walba u arkin ayaa ku gashan kartaa qayb gallery oo kale sawirro bis ah oo aad u qurux badan hadaa haystid waa gelin kartaa qayb waxaa haystaa team oo kale dadka kula shaqeeyo waxa ay yihiin haddii faarax xaawa kula shaqeeyaan team aad gashanaysaa dhammaantood halkaasaa lasoo gelin doonaa every person oo kula shaqeeyo halkaasaa soo gashan kartaa review oo kale dadka kala commentiga kaa siiya menu oo kale haddii maqaayad ay ku furan tahay restaurantiga waxaa haysid menuda tusaale kale dinner lunch drinks waxyaabaha haysid oo dhan aa soo gashan kartaa waxaa kaloo soo gashan kartaa maxaan dhahaa FAQ oo kale tusaale kale su'aalaha badan ay dadku weydiiyaan haddii too kale si u shaqeysaan committee muxuu qabtaa waxyaabahaas oo dhan aad gelin kartaa privacy iyo policy labadana way ku jiraan soo marka maxaan dooranaa marka hadda maxaan ku xijisana inaan gashano ani waxaan dhihi lahaa contact us aan gashanaynaa because of inaan helno contact us waa aad muhiim u tahay haddaadan contact us haysanin dadka intay kala soo xiriirayaan waa su'aal marka pagekaada waa inaa haysataa contact us aad muhiim u tahay waxaana gelinaynaa badanaa contact us-ka qaybta ugu dambeysa gelinayna maxaa yeelay horey haddaa soo gelisid waa xoogo unprofessional waa aragtay website-yada badanaa aad booqataan contact us-ka waa meesha ugu dambeyso mali maqlaa horta asxaabta ku jirto zoomka yes waxaad tagtaa Somali Innovation Facebook groupkooda si linkiga u heshato cashir socdo waa zoom ah shalaan bilawnay waxaan baranaynaa sida loo dhiso website cashirkana shaloo bilawday maantana maalintii labaad waa Facebook groupkooda si oo tagaa marka Facebook aan tagaa markaas research gareynaa magac Facebook tag search dheh Somali Innovation kadibna soo gal si aad linkiga halkaas uga hesho zoom ama nagala soo hadal Instagram-ka si aad aan kugu soo dirno linkiga contact us-ka aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay dadka meel ay kala soo xiriiraan waa inay helaan soo marka hadhow waxaan gelin doonaa emailkeena numberkana laga helo businesskeena hadduu address leeyahay iyo all the social media hadday noqoto businesskeena hadduu leeyahay Facebook businesskeena hadduu leeyahay Twitter businesskeena hadduu leeyahay Instagram iyo dee qofkii caadi inuu magaca koowaad iyo magaca labaad iyo emailka uu geliyo iyo message qurux badan oo kusoo qoro kadibna uu sandi dhaho taasna waa ku darsanaynaa sidoo kale waxaan ku darsan doonaa haddaan rabno maxaan dhahaa events oo kale haddaa qabanayno tusaalo kale hadduu businesskaaga yahay maxaan dhahaa mid oo anaga hadda waxaan dooranay by the way intaan isku qasin businesskaan dooranay waxay ahayd inaan sameyno maxaan dhahaa in aan sameyno what we do online aan ka baxo because of website-ka gudaha markaa ku jirtid meel walba aad ku dhufatid waxbaa kuu soo baxay because of editing ku wataa waa ka shaqaynaysaa so marka what we do qofku markuu doorto landscape-ka kale hadduu tago waxyaabo badan oo arkaya wixii markaas uu qofka sameynaya sawiradii aad ku ruux badnay so marka waxaan sameynaynaa what we do qofka markii uu ku dhufto hoostiisa optiono badan oo soo baxayo haddaan rabno waan ka qaadi karnaa oo page caadi ah ka dhigi karnaa laakiin mar walba waxaa noo wanaagsan inay soo hoos galaan so hadda waan gelinay maxaan dhahaa blog contact maxaan kaloo ku dari karnaa intaanan pageka aanan ka bixin because of home pageka aad ay muhiim u tahay landscape-ka kale waan aragnaa sidoo kalena waxaan aragnaa qaybta kale dhismayaasha aad u quruxda badan oo qofkaani sameeyo maadaama sawir qaado uu yahay qaybta kalena waxaa sameynaynaa aan arkayno qaybta noqoto sawirada kale so marka daas waxay sameeyaan so marka maxaan kaloo ku darsan karnaa page kale events aan ku darsanaa mas portfolio waxaa waaye sawiradii oo sida hadda ku hoos jiro kale landscape-ka so marka ma rabno maxaan ku darsanaa marka as dhihi kartaan
linki xataa waa ku dari karnaa haddii aan hayno waxyaabo kale oo extra ah so marka maxaa is dhihi kartaan waan ku dari karnaa maanta hadda website-kan appointment ma ugu darnaa si dadka balan ay nooga qabsadaan maadaama aan sabiro aan appointment na because of maadaama wixii sabiro aan hayno appointment inaan ku darno dadka si ay balan nooga qabsadaan intaysan imaanin so markaan mar Facebook aan check gareynayaa maadaama dad badan aan usoo dirna Facebook inay galaan I hope inay linkiga heli doonaan linkiga mar labaad inaan u geliyo waayey Soomaalidu haddii rabaan waxay ku leeyihiin maanan arkin so waxaan sameynaynaa businesskeena si qofka uu balan inoogu qabsado appointment aa gashanaynaa appointmentkaas markuu naga qabsado asaan hadhow dooran doono maalinta uu rabo option aan siinayna option aad u fara badan marka keebaa qurux badan is dhihi karnaa inaan sabir raacsiino because of appointment oo qaleel ah bilaa sabir adduunka waxaa la sheegay inaa website-kaada sabir kusoo dirtid ama businesska aa leedahay aad bay yacni uga wanaagsan tahay meel cidlaa inaad geliso marka waa muhiim inaan sabir ku darno sabir la-aan waxay la tahay xoogo wax aanan qurxanayn so marka kana aniga ila qurxan kan saddexaad because of kan hadda appointment waayo qoraalka gees u jiraa qoraalka gala gees xoogo waa unconfusing so marka waxaan dooranaynaa si more professional u noqono kan wax dhan way soo siyaalaan so marka appointment ku qoranaynaa appointment marka ku qorano appointments waxaan gelinaynaa mar walbaba waxa aan qabano blog waxa ku soo xigo because of qofkii waxaad ku kalifaysaa inuu action qaato waa he has to take action inteedii dambe ku jirtay so asxaabta ku jirta Clubhouse waxaan ka codsanaynaa inaad tagtaan Somali Innovation Facebook groupkooda si aad u heshaan linkiga waxaa inoo socdo cashir oo Zoom ah waxaana baranaynaa sida loo sameeyo website-ka si anagoo kusoo bilaabana from scratch so marka appointment waa soo gashanay qofkii hadhow maalinta ayuu dooranayaa halkaas ayuu soo gelinayaa in 6 weeks in 7 weeks so halkaas ayuu galan doonaa insha Allah so marka wax kale aan ku darsanaynaa waxaan dib ugu noqonaynaa layout-ka waxaan rabnaa home page-ka service waxa bixina maamiya already waa la doortay service case waa noogu jira what we do already automatically way noo dhisan yahay haddana xataa waa ku sii dari karnaa laakiin already way noo yaalaa wuxuu ku hoos jiraa what we do so marka waxaan gelin karnaa haddaan rabno team oo kale team ma leedahay kula shaqeeyo oo sawirada kula qaada hadday jiraan waan gashan karnaa team website-kaaga hadday jiraan 3 qofood 4 qofood team waan gashan karnaa waxaa leenahay team ama waxaa dhihi karnaa always is funny our best team aan dhihi karnaa because of website-kaada dadku markay soo boqdaan inta adiga keliya ay ku arki lahayn waxaa wanaagsan team kala duwan inay arkaan so marka teamka waxaa ka hormari karnaa what we do waa qasab waxaa samaysid action waa moogta yacni ficilkii aad samaynayso waaye dadkii kula samaynayay waxa aad ka qortay appointment inuu sameeyo qofka inuu wax ka ogaado contact kula soo sameeyo waa si aad u qurux badan bay hadda inoogu socotaa hadhowna teamkan dee dadkan sawiradooda waa ka qaadi doonaa oo dadka kula shaqeeyo aan gelin doonaa insha Allah waxaa kaloo inoogu xigo inaan gashano intaanan kasii gudbin inaan isla fiirino wax kale ani hadda isma dhihi kari waxaan privacy-ga iyo termska dad tusaalo kale privacy-gaada inay ogaadaan sawirada aad ka qaadid inaadan business xun ahayn oo sawiradii aadan ku dhedheelinin oo social media aad iska gelinaynin qofkii sawir aroos oo kale dadka aroosyada sawirada ka qaado kale dad waxaa jira privacy ku dheereeyo sawiradooda ku dheelayn oo kale privacy ku qoraysaa because of hadhow qofku waa inuu aqriyo waa privacy-gaada oo dhaho hey qofkan haddaa sawir u doonto kale ama businesskayga ka adeegto privacy-ga waa muhiim even businessyada qaar credit cardka qofka markuu kusoo geliyo waa inuu credit cardkiisa safe uu yahay ma fahanta oo aadan xogtiisa ku dheelaynin so marka privacy-ga iyo termiska waa aad muhiim u tahay laakiin waa more advance hadhow waa samayn doonaa so marka aan hadda isma dhihi kari wax kale oo maxaan dhahaa oo aan ka tegayno halkan inay ku jiraan so marka waa ka leexanaynaa so marka hadda pageska halkaas aan uga baxanay maantay isma dhihi kari wax kale looga baahan yahay hadday imaato dhanka pageska ani ahaynteyda mis waxbaa ka tegayna is dhihi kartiin pageska hadda intaanan ka bixin menuga maxay taray ustaad menuga menuga maxay taray oo page la
menuga waxa waaye kind of like dadka restaurantiga leh iyo you know waxay hayaan oo kale tusaale oo kale menuga maqaayad markaa tagtid oo kale waa adi xataa as a business waa ka dhigan kartaa qasamaha maqaayad waxaa dhigi kartaa menugeena waxa waaye aroosyadan sameynaa aad ku quruxda badan iyo waxaan sameynaa sidoo kale sawiraha hadaa qaadaysid waxaan kaloo sameynaa xalfadaha waxaan kaloo sameynaa laakiin already servicekaada ku dartay so marka muhiim inoo maahan qasabna maahan wax walba meesha ku jiro inaa isticmaalo ma fahan because of businesskaaga waxaa laga yaabaa baahidiisa inaysan u baahnayn so marka taas ma isla fahmin okay maxaan kaloo ka tegaynaa is dhihi kartiin ani bil aadan aan ahay maxaa kaloo is dhihi kartiin businesskiina oo maanta ah sawirka waxbaan ka tegaynaa ilama ahan ana hadda pageka waa ka tegaynaa marka home pageka so marka home pageka markaa ka tagno waxaan rabaa inaad la aragtaan this is marka waxa aad joogto so marka waxaan rabnaa inaan hal mid isla fahanno every page arabti mar walba page aan isticmaalayna luqadda aan isticmaalayna waa pageska pageska markaa ka hadlaynana waa kuwan kor inoo saaran so marka every page markaan aan rabna inaan xalino waxaan ku dhufanaynaa korkiisa ila fiiriya every page markaan rabna inaan xalino korkiisa ku dhufanaynaa korkiisa markaan ku dhufano asa mobile waa u arki karnaa mobile mujida qofka because of clientiga hadda dunida inta ugu badan waxay isticmaalaan telephone dadkan waxaan kula dhiirigeliyaa website markay dhisayaan inay qasab ku tahay asa telephone inay u jeegarayaan telephone ahaan waa inay u jeegaraysaa you see qofkii telephone markuu isticmaalaya saan uu arkaya so markii haddaadan telephone ahaan ku qancin waa iska bedeli kartaa ama edidaa ku samayn kartaa so websiteka saan uu ekaan doona hadhow telephone markuu qofta meesha menu ku dhufto waxaana usoo baxay what we do saddex option usoo baxayo mid ka mid uu ku dhufanaya asa telephone ahaan u jeegaraynayna hadhow telephone ahaan saan uu eegaya qofkii telephone ahaan uu isticmaalaya then marka waa inaad jeegaraysaa so marka hadda murubni waxaa ku noqonayna back to desktop so marka inta ugu muhiimsan intaan waa edit markaa dhahdid daaminas waqti xaadirkan waxaa kor taaganta ayuu edit kugu sameynaya haddaa tagna our best team aan korkooda ku dhufano oo edit aan dhahno daaminas waxaa edit ku sameynayna our best team hadhow wixii bay kaa qarsamay homepagekii so marka every section aad ku dhufatid waa drag and drop hadaartid hoos iska geyn kartaa hadaartid kor iska geyn kartaa hadaartid waa edit garayn kartaa qoraaladii waa kuwana linkiya hoos gelin kartaa waxyaabo badan aad ku samayn kartaa so marka waxaan rabnaa hadda inaan edit ku sameyno maantay our team so marka waxyaabaha kasii quruxda badan oo markii aad gudaha soo gashado kale hadda dunida way tagtay you know wixii dhan waxay noqdeen easy I don't know why dadka ugu faa'iideysan layihiin markii aad gudaha galno kale tusaale kale waxaan rabnaa wax kale inaan ku dirno section kale because of sectionka koowaad labaad saddex section leh hadda haysanaa iyo sectionkaas oo hoose saddex section iyo haba haysanaa awood waxaan u sileynaa inaan kusii darno sectionna kale tusaale kale maxaa ula jeedaa qaybta hoose inaan section ku darno kale section waxaan awood u sileynaa fiiriya hadda section markaa kusii darayna fiiriya headline aan ku darsan karnaa list aan ku darsan karnaa oo aad u qurux badan listiyada waxa aad samaynaysa waxaan kusii darsan karnaa gallery oo sawiro keliya iyo israacan iyo pictures quote yani dadkii waxa ay dhaheen asxaabtaada ka mid ay ku darsan karnaa qoraal keliya text aan ku darsan karnaa this time waxaa jaanis oo sana video inaan ku darno oo qayb video ah oo qurux badan oo aad soo edit garayso oo teamkaada ka hadlaayo waxaan ku darsan karnaa appointmentiga aan sii hoos dhigi karnaa anaga waan haysanay hadday appointmentiga as a home page laakiin hadda as a section aan u haysan karnaa labay kala tahay home pageka iyo sectionka hadda labay ku kala duwan yihiin so marka waxaad tegi kartaa as a home page so marka asxaabta ku jirto clubhouse-ka waxaan ka codsanaynaa inaad tagtaan Somali Innovation Facebook groupkooda si aad u heshiin linkiga Zoom-ka waxaan bilawnay shalay sida loo dhiso website so marka waxaan ka codsanaynaa inaad ka faa'iidaystaan inaad barataan sida website loo dhiso so casharo free ah inoo socdo qofkii raba inuu Zoom ka soo qayb galana linki wuxuu ka heli karaa Somali Innovation Facebook groupkooda so marka waxaa kaloo sii heesanaa inaan sii hoosgelino contactiga each person anagoo markaas sii eegayno waxaa kaloo sii hoosgelin karnaa donation yani haddii websitekaada arabti inaad kusoo dirtid donationka marka siyaabo badan aa u isticmaali kartaa inay dadka kaaga mahad celiyaan websitekaaga iyo waxyaabo forma hoosgelin kartaa oo dadki inay form soo buuxiyaan ay kusoo diraan newsletter tusaalo kale qofki inay sign up ku sameeyaan newsletter ay soo geliyaan maxaan dhahaa first nameka last nameka emailkooda soo geliyaan damins every time aa wax soo saartid waa sii hoosgelin kartaa waxaa kaloo sii hoosgelin kartaa products waa haddaa haystid waa product ay iibinaysid finaanado shaatiyaal wax xun waa sii hoosgelin kartaa social media links tusaalo kale haddii aad leedahay Instagram waa ku xiri kartaa sawiradaada wax walbo Instagram aad gelisid automatically waxaa laga arki karaa websitekaada adoon wax kala samaysan automatically
toura siin kartaa dadka tusaale kale haddii rabaa inay businesskaada imaadaan dhismaha maalin ay qabsan karaan maalin hebel way imaan karaan badanaa waxyaabaha tourka sameeyo kale hoteeladoo kale iyo maxaa dhaha meelada vacationka loo tago kale iyo iskuuladoo kale way sameeyaan qofka maalinoo balan qabsanaya even xafiisyada dowladda website-yada leeyihiin tour qofka maalinoo balan qabsanaya maalintaas markuu balan qabsado wuu imaanaya dhismaha lasoo tusinaya waxaa galoo gelin kartaa calendar maalinkaasi waxa kambanigaada ka dhacayo ka socdo so marka waxaan ka codsanayaa wixii markaas baahidaada ay tahay inaad ka eegtid calendar gashan kartaa automatically dadka asxaabtaada ah ama dadka kusoo fiirina website-kaaga inay arkaan maalinkaas waxa qabanaysa anaga hadda Somali Innovation waxaan kusoo darnaa calendar every time aan qabanayno event clubhouse-ka ama guest speaker noo imaanayo si ay dadka automatically calendarka ula socdaan oo qasama xataa inaad u sheegtid qayb waxa ku dari kartaa oo chart-ka ah chart-kaas wuxuu ka caawinayaa waxa as yani businesskaaga inta oo koray koritaanka uu sameeyay businesskaaga haddii noqoto dhanka social media 10k haddaa gaartid inaa xagga soo geliso kale horumarka aa samaysay ama last year waxaa qabateen oo kale businesskaada growthkiisa inta capacity-ga uu la egyahay location aa soo gelin kartaa qaybta ugu hooseyso oo dadkii sii arki karaan location meesha oo businesskaada uu yahay waxaa kaloo haystaa logo dadka yani kambaniyada kale hey waxaa partner la nahay shirkadda hormuud dahabshiil bala whatever day oo idinla shaqeeyo ayaa soo gelin kartaa music saaloo kale you know anaga qaybta Somali Innovation haddana qaybta music waxaan soo gelinay inaan duubno clubhouse-ka inaan duubno oo halkaas aan soo gelino sidoo kale pricing-ka aan soo gelin kartaa you know dadkii haddii rabaan markay rabaan inay photo iibsadaan oo kale waxaa dhihi kartaa hey option 1 waxaa haysataa inaad bixisid $20 oo kale ama $40 option 2 $8 haysataa option 3 waxaa haysataa $70 inaad pricing-kii optionna ay siisid oo kale ama 1 time aad ka dhigtid ama 2 time ama 3 times ama 3 times oo ayadoo kala duwan aad dooranayso midkii markaas qurux badan adigoo haddaarti pricing-kii qofka markuu dooranayo qoraal yar oo sababta oo $60 u bixinayo u hoosgelin kartid iyo sabir aad u qurux badan oo qeexayo haddaartid you know qofa u saari kartaa join us oo gelin kartaa haddaartid subscribe aad dhigi kartaa join us adoo laba option siinayo membership A iyo membership B so many options haystaa markaad sameynaysa qaybta pricing-ka so marka halkaas waa sectionska marka section ku jirnaa marka awooddaas ku siinaysaa inaad soo geliso so marka anaga hadda maadaama aan joogno aba team waxaa gelinaynaa inay soo qabsadaan oo kale maxaan dhahaa aba team marka imaanayo kale video qurux badan inaan u gelino kale teamka waxay qabtaan oo kale ay arkaan ama waxaan sameyn karnaa code au gelin karnaa oo kale yani eray ay dhahin teamkin oo kale ama waxaan sameyn karnaa waxaan u gelin karnaa oo kale haddaan social media ama waxaan gelin karnaa newsletter marka anaga go'aankas kale ama waxaan u gelin karnaa calendar oo ay la socdaan waxa aan qabano so marka maxaan u gelinaa marka idinka aynu kusoo noqday hello asxaabta zoomka asxaabta clubhouse waxaan idinka codsanaa inaad tagtaan Somali Innovation Facebook groupkooda si aad u heshaan linkiga so marka maxaan gelinaa asxaabta zoomka halkan qaybta sectionska markay imaato teamka waxaa edit gareynaynaa hadda qaybta teamka edit gareynaynaa marka maxaad dhigi kartaan waan kusoo dari karnaa qaybta teamka quotes and video okay good so marka waxaan isla dooranay video inaan kusoo darno videoha weliba waxaan ka dhigi karnaa ma hal xabaan soo gelinaynaa mise laba xabo mise hal xabo qoraalka geeskan dhanka bidix ka jiro mise dhanka midig go'aanka anaga iskale ama hal xabo oo qoraalkii ka hooseeya ama qoraalkii ka koreeya maxaan sameynaa qoraalka hooseeya macnaa walaah okay qoraalka hooseeya good okay way noo soo gala marka sectionkii waa haysanaa did everything way ku diyaarsan waa drag and drop laakiin waa edit gareyn doonaa insha Allah so marka waxaan sameynaynaa aba team way noo diyaarsan yihiin waxaan rabnaa inaan hadda marka teamka edit gareyno because of qofkan cadaan waaye ma ahan teamkeena sawirka korkiisa ku dhufan karnaa waxaa leenahay meesha halkaas ay ku qoran tahay edit waa edit gareynaynaa sawirka ka qaadinaa marka remove waxaan rabnaa inaan soo saarno saaxiibkeena so marka anay Soomaali badan asxaab ma leeyihi laakiin waxaan raadinayaa at least carton inaan soo saarno ayaa isku dayay sug marka Facebook groupka hal mar ku noqonaya dadka rabaa inay linkiga helaan oo kale haday heleen marna inaan dadka lus gareyno oo dad badan u soo dirnay inay ay ku soo biiraan maxaan dhahaa Facebook I hope qof walba inuu helay so marka waxaan rabnaa inaan tagno
website sidoo kale waxaa idin bari doonaa laga helo free pictures waxaan idin ka codsanaa website-yadaas oo kalena inaad qorataan waxaan leenahay caadi google-ka gelinayna waxaan leenahay free pictures waa easy free pictures to use so markeen saddex website aan rabaa inaan idin tusiyo oo maanta inaad meel ku qorataan website-kan number 1 pixels number 2 iyo website-ka saddexaad waxaa waaye aan badanaa isticmaalo I don't know why maanta uu herki lahay website-ka labaad unsplash ay ku qoran tahay so marka 1 2 3 saddexda website waa saddexda website aad ka heli kartid sawirro isku xigaanba 1 2 3 meelaha lagu qorto magacyadooda ama screenshot ha laga qaato saddexda website waxay ku siinayaan sawirro free ah oo aad isticmaali kartid oo hadhow adduunka iska ilaaliya especially marka website dhisaysid waxaa jiro copyright protection la dhaho waxaasi hadhow way ku qabsan doonaan mali maqlaa horta si fiican qodobkan muhiim waay marka google inaad iska tagtid sawirka aad rabtid magaciisa inaad gelisid google-ka kama soo degsan kartid because of waxaa laga yaabaa dad in leeyihiin hadhow lagu qabsado so marka always iska ilaali copyright protectionka so marka website-yadan waxay ku sahlayaan inaad sawirro free ah ka hesho haddaa saddexdan website sawirka aad raadinaysa ka weysid fadlan kaamirad soo gada ama telefon adiga website sawir iska qaad soo gasho website-kada haddaadan sawir aadan lahayn maalin unbaa lagu qabsan doonaa laakiin dadkiinan afrika jooga waxaa laga yaabaa dadka hadday afrika joogaan badanaa inay ka badbaadaan laakiin special wadamada horumar haddaa joogtid copyright protectionka aad uu kugu saameynaya so marka waxaa dhahdaa person iska gelinayna oo kale tusaale kasoo qaad waxaa iska gashanayna oo kale waxaa gelinayna oo kale teamkeena waxaa ka shaqeeyo faaraxan oo kale anagoo nala shaqeeya so marka waxaan rabnaa sawirka magaciisa inaan ilaalino sawirka waxaa ku qoran Joseph waxaan ku noqonaynaa sawirkeena add picture alena marka saaxiibkeena sawirkiisa rabnaa inaan gashano Joseph anagoo nala shaqeeya oo asxaabta ku jirto clubhouse-ka waxaan ka codsanaa inaad tagtaan Somali Innovation Facebook group-kooda Facebook waxaa ku qortaan Somali Innovation kadibna waxaad helaysaan linkiga cashirka aan maanta bixinayno insha Allah so marka Joseph anagoo nala shaqeeya so marka waxaan rabaa hal mar qaybtani ay ku qoran tahay Joseph hoostiisa haddii aad qoraal ku qortid qoraalkaasi waa more advance waa advance waxaa ula jeedaa waxaa jira la dhaho SEO waa Google Engine search-ka so marka SEO-gaas hadhow ayay caawin doontaa badanaa waxaa la geliyaa businesskaada informationkiisa ama businesskaada magaciisa so marka hadda waxaan rabnaa inaan magaca ula baxno qofka magaciisa koowaad iyo magaciisa labaad waxaa leenahay Faarax let me go and throw back let me see this waxaan rabnaa first name last name-kiisa inuu yahay magaciisa waxaa la dhahaa magaciisa waxaa la dhahaa Faarax Maxamed tusaale kale Faarax Maxamed aa la dhahaa waa edit garaynayna Faarax Maxamed magaciisa saas aa la dhahaa marka waxaa leenahay qoraal yar oo Faarax ku saabsan aan gelinayna waxaa leenahay hadhowna waa la arki doontaan Faarax waa ninka ugu wanaagsan company-geena wuxuuna diyaar u yahay in uu kula shaqeeyo okay safe aan leenahay marka waxaan rabnaa asxaabta zoom-ka ku jirto inaad website-ka ku noqotaan linkiina waa kaas oo shala dadkii la joogay inaad linka gelisaan password-kana tagtaan wixii hadda aan sameynay inaad aragtaan so marka idinka idinku soo noqdo marka ardayda kaas waxaan rabaa waxa aan sameynayno inaan isla soconno haddii aad aragtay oo computer isticmaalaysidna screen-ka waa nala share garayn kartaa waa fasixi doonaa insha Allah screen share okay website-ka dadkii shala jooga ma xasuustaan sida loo galo hello okay haddaad arkis sidii shala aad samaysid gal website-ka waxa aan sameynay Faarax aan kusoo qornay nala eg inuu update yahay in kaleeto kaas waxaan rabnaa wixii practical ahaan inaan u sameyn linki Facebook aad soo dhigaysaa soo galaamaan ha ama halkaas uu ku qoran yahay somali.eco.squarespace.com haddii aad computer ka isticmaalaysid shaashada share waa nala dhihi kartaa kaas waxaan rabnaa waxa aan markaasi sameynayno inuu adduunka oo dhan update ka ahaado automatically qof walba dunida jooga inuu arki karo
idinkana waa isku dayi kartaan dhammaantiin oo meesha ku jirtaan zoomka somali.eco.squares.com geli squarespace.com waxaan rabnaa kadib inaa password ku weydiina passwordkan waxaa ka dhignay 1 2 3 4 kadibna aan la share gareysay screenka ana shaashadeeda waa xiri doonaa insha Allah qofkii markaa shaashadana la wadaagi karo shaashada ma wadaagi kartaan mise wili weyn ku adkeynaysaa أنا وذلك أستاذ. okay squares ma ku qortay عادي waxaad tagtaa Soomaali ku qor Soomaali caadi ku qor kor Soomaali mi maqashaa Somali. Soomaali ku qor eco dot square space.com سووا صوصة باسورك كله استحفر أو team tag marka page ka hadda aan ka shaqeynaynay horta intaada meel kale tagin kow maxaa sameynay war we do waan gashanay adarta service ka ama never adeeg ku khusaysa so marka shaashadaan inaan dadka tusino kow waxaa sameynay war we do laba waxaa sameynay our best team saddex waxaa sameynay blog so marka our best team ku dhufo waxa hadda aan ka shaqeynay our best team okay teamamkeena ku jiro oo kow ka ah وفارح سمو جدا فارح وانينكا وناكسن كمبني جينا وحنا ديارو انه كل شقي اوكي سو دامينس قفكي هذا يعني وسيت كنا تجو هذا برايفت دوم باسورا ku xiran laakiin public marka ka dhigno automatically qofka saan uu arkaya ma fahanti so marka intaan wal fahmaa rajaynaya mise wixii su'aalka qaban oo soo noqon kara ma la fahmi أنا ما فاهم كله. أي dadka kale hello idinka zoom idinku jira waqtiga idin siinaya soo marka waa inaan wada hadalnaa waa inaan wada shaqeynaa because of idinka waa inaan ku fahmis okay good so marka hadda automatically u jeedaa somahan meel walba ku dhufo anything asameyna ku dhufo waad arkaysaa laakiin wuxuu u baahan in laga shaqeeyo oo aan ka dhigno waxa anaga aan rabno inaan ka dhigno ma fahanto blog hada ku dhufatid blogs badan ku jiro meelba blogs badan ba ku jiro soo ma jeedid waxaan dhan waa edit gareyn doona hadhow insha Allah oo waxa anaga aan rabnaa ka dhigana wax walba waa drag and drop mid ka mid hada ku dhufto arkaysa appointments ka daartid sidoo kale waa arki kartaa appointment oo soo qabsan kartaa soo ma jeedin appointment waxaas dhan waa bedel doona qofka maalinta doonto ku dhufto hada asdaad waa rabaa inaan ku dhufsado maalinta ma dooran kartaa ama taariikhda way xiranta see more time ku dhufo More items kan more times. okay we will xirin no spell left that means we will xirin so marka inaan update gareynaa la rabaa soo so marka waa ka shaqeynayna insha Allah waxaas oo dhan way noogu jiraan about us sidoo kale contact us dhammaantood wada shaqeynaa intii page aan gelinay way wada shaqeynayaan soo marka waxaan rabnaa inaad wada fahantaan casharka sida uu socdo
waxaan oo dhan way edit gareynaynaa numberka meesha ku qoran waa ka tirtiri doonaa locationka sidoo kale waxaas oo dhan hawada ku xunaynaa insha Allah so marka I think screenka hadda way igu soo wareejin kartaa marka intaas in la isla fahmaa rajeynaya so marka any page aan tagno contacts ka daa waxbaan kasoo taga u jeeday kuwaan waa inay dhid dhahno si ay dadka hadda u arkaan oo qofka loo update gareeyo waynu update gareysan yihiin kadibna waxaa leenahay waa save gareynaynaa so marka waxaa sababta uu ii diidayaan la yaabanahay so marka waxaan sameynayaa applied edit then waxaa leeyahay apply sug hal mar waxaa rabaa inaan on contactiga markaan ku dhufto ii soo baxaan uu i weydiinaya inaan hadhow email geliyo sababta ii weydiinaya waxay tahay already wuxuu iga baahan yahay inaan email geliyo so marka waxaan rabnaa our team inaan ku noqono contact ii dambeyso so marka waxaan rabnaa qofka kale inaan bedelno qofka inoogu xigo haddaay faaraxan bedelnay qofkaanaan hadda maanta ku joojinaynaa insha Allah kaasoo mar inaan kusii dahno waqti aan haysanaa idinka xatir waa sii samayn kartaan haddaa rabtaan passwordka idinla soo wadaagi karaa automatically so marka waa edit gareynaynaa qofkaan marabno waxaa ku noqonaynaa meesha laga helayo sawirada freega ah waxaan dooranaynaa sawir free ah marka dadka ku jiro clubhouse-ka waxaan ka codsanaynaa inaad Somali Innovation Facebook groupkooda aad tagtaan aad soo gashaan linkiga si aad u heshaan linkiga Zoom-ka insha Allah xashir Zoom ay noo socdo مالي مقلة ضد كلاب هاوس كجرو يا السلام عليكم سؤال خبير اوكي I think خوف كان بيزي waa ka soconayna waxaan kala dooranayna teamkeena qof ku jiro soo markay nin le meesh inta soo gelinaynay qof waa socon kartaa qadar okay sorry عفوا حلو اربع عشان كذا ادقيق marka waxaan sameynaynaa qof dumar ah soo gelinaa marka meesha rag leh client noqon lahaayeen qof dumar ah soo gelinaynaa qofkan oo kala soo gelinaa hadda oo wiliba waxay ka turjumaysaa meel qurux badan dadka anaga footada aqaana sidoo kale naadiya ku qoran sawirka magaciisa badanaa sawirada waa la xifdiyaa because ana sawir download marka soo dhaqo magacan xifdiyaa soosan iga la xulumin naadi so marka naadi waxaan u bixinaynaa naadi magaceeda waxaa la dhahaa tusaalo kale ka soo qaad xaawo حتى الصبر كون حسمي كرنا مركوسان كوينادو صبر كسانو كوينادو سمان واسو يران كرنا because marno sawirada inay kala weynaadaan always waa drag and drop halkaasi double click ku siinaysa markay calaamada madow ku noqoto drag and drop ku sameynaysa marna sawirada inay kala wadaaga kala weynaadaan waxa leenahay xaawo because marbo first name last name ka muhiim ay tahay xaawo waxaan iska leenahay cali soo dhawe xaawo cali marka waxaan title u sameeynaa waxaan leenahay dadka si ay u akhristaan xaawo waxaan leenahay xaawo waa qofta kaliya diyaar u ah inay sawiro qurux badan inay ka qaado ee ka faa'iideyso ama ka qaado la shaqeeymaha wax saasan qorina la shaqeey okay so marka waa u sameeyna xaawa title-keeda hadaarno waxaan sameyn karnaa waxaan raacsin karnaa dadka halkaas ku jiro social media tusaale kale social media da raacsin karnaa hadaarno kale waxaan rabnaa inaan social media da raacsin oo kale contact aan leenahay fiiriya hal mar ila socda waxaa rabaa faarax si gooni in loola soo xiriiro dadka clubhouse ku jiro waxaan ka codsanaa inay tagaan Facebook groupka Somali Innovation Club ay ka soo qaataan linkiga maxaa yeelay halkaas linkiga soo gelina Zoomka si aad ugu wada faa'iideystaan dhamaantiin so marka waxaan tageynaa faarax waxaan gelinaynaa social media linkigiisa hadhow faarax si dadka contact direct ula sameeyaan aara leenahay waxaa sameynaynaa waxaan gelinaynaa faarax waxaan u gelinaynaa social media tusaale kale Instagram-kiisa
ama waxaan gelinaynaa let's say Instagram-kiisa u gelinaynaa. So marka waxaa leenahay Faarax Instagram-kiisa soo qaadaynaa. Instagram-ka markii la soo qaadayo sababta loo soo siyaabaha loo soo qaadayo intusinaa. Kow waxaad tegi kartaa hal markana hoos soo dejinaya. Waxaad tegi kartaa badanaa waxyaabaha la sameeyo waxaa waaye Instagram.com markaad dhahdid .com slash aa leedahay hadhow si aad qofka si gooni u hesho. Instagram.com slash aniga kale hadda username-kiisa gelinaysa qofka slash whatever qofka linkiisa u heshid then automatically copy soo leedahay marka linkiga copy markaa soo dhahdid waa soo qaadaysaa then hadda wuxuu rabaa gudaha inaan galo oo aan add account dhaho because wili account kuma soo darin ama juice account laakiin waxaan sameyn doonaa insha Allah hadda waa soo gelin doonaa qaabka u galayna double slide ka dhigi kartaa one slide ka dhigi kartaa adaa adoods kale badanaa noocan laga dhigaa then apply leedahay then hadda waa ku soo direynaa ama link ahaan u soo gelinaa laakiin hadda waxaan sameyn karnaa inaan ku darno so markay ama waxaa sameynaysaa inaad kan iska delete gareysid ayaa waxaa dhihi kartaa asal link u gelin kartaa link ahaan u gelinayaa link ahaan u gelinayaa baalkiisi maxaan dhahaa link social media links okay asal link ahaan u gelinayaa Facebook ku dhufanaa maxaan ku dhufanaa baalkii Instagram waxaan leeyahay add waxaan leeyahay Instagram dhac waa ku copy gareey save aan dhahaa Instagram bisa soo baxay so marka hadhow mid kale inaan ku dar hadaa rabo asaga click ku siinayaa click aan leeyahay mid kale ku sii dari karaa whatever Facebook hadaa haysto soo kale waxaan soo qaadaynaa Facebook aan tegaynaa facebook.com mar walba waa idin sheegay .com markaa gelisid slash raacsinaysa slash Somali Innovation Club mar walba markii aad website dhisaysid waxa u baahan tahay inaad aad linkiga Somali Innovation markaa dhahno copy aa leenahay so markaa linki gelisid automatically asaa ku sheega waxa uu yahay Facebook ku soo qabanay mujido automatically asaa hoos ku qabanayo halkaas leeyahay kadibna save gareena mar walba oo save dheh so marka qofka Faarax markay arkaan customer-kaagi automatically waxay heli karaan Faarax social media si direct ula xiriiri karaan so marka waxaan rabaa hadda inaan idinku soo wareejiyo shaashada oo ay ila share gareyn kartaan Faarax social media ina arki kartaan waa idinku soo wareejiyo insha Allah qofkiina jecel inuu nala wadaago qofkii shaashada rabo inuu nala wadaago ana fura aya Zoom-ka oo classes-ka عادي مع website ko Somali Innovation loo heli karaa yeah Facebook group can yes okay so ujeedaan so markay qofka website-kaada markuu imaado oo ku dhufto Somali Innovation automatically wuu arkaya okay ka bax marka waxaa rabaa Instagram-kan in ay jegraysid ku noqo website-ka dhanka kale ku yaala waa kasa no page kale ku soo furay page-kii hore ku noqo kii hore oo ku yaala halkaas ku dhufo kaas kii hore ku dhufo kii hore Facebook ku xiga dhinaca kale bidixda aad yep Instagram fura mar walba aad social media cusub bulshad page cusub ku furaya so Instagram automatically waa loo jeedaa Soomaa so marka customer-kaagi way arkayaan markii aad link gelisid so that means Faarax hadda u baahnaa inay la shaqeeyaan Faarax linkigiisa helaya ma fahanti si social media inay la xiriiraan one to one ah taas misla fahmi intaas misla okay shaashada igu soo wareeji marka shaashada waa igu soo wareejin kartaa intaas waa isla fahnaa rajeynaya okay intaas waa isla fahnaa rajeynaya so marka
maantay halkaas ku joojinayna waxaan sameynay waxaan dhisnay waxyaabaha maanta qabanay kow waxaa kamid ah pages inaan samaysano website-ka waxaan sameynay page koowaad ah waxaan sameynay business-keena waxa uu yahay page labaad ah our team-keena quruxda badan nala shaqeeyo oo waxaa kamid ah Faarax iyo Xaabo Faarax iyo Xaabo waxaan u sameynay sawirkoodan soo gelinay magacoodan ku qornay description oo qurux badan aan u sameynay social media-dan soo gelinay Faarax waxaa la heli karaa Facebook-giisa waa kana Faarax Instagram-kiisa waa kana Faarax Snapchat-kiisa waa kana whatever uu Faarax isticmaalo ayaan soo gashan karnaa Xaabana sidoo kale biritan soo gelin doonaa insha Allah qof saddexaadna waa raadinayna ama qofkan waxa ka dhigi karnaa manager-ka kale asaga koo ka dhigi karnaa drag and drop inaan ku sameeyno asaga number 1 soo gelin karnaa waxa dhigi karnaa kan waxa waaye manager-ka ugu weyn meesha ama ninka asaasay soo markay maanta halkaas aan ku joojinayna casharka dhamaantiin waxaan ku codsanayaa inaad ka faa'iidaystaan casharadan free ah ee idin bixinayso Somali Innovation casharadan waxaan qaadan doonaa maalin walba 1:30 markay tahay ama 9:00 barka fiidnimo markay u tahay Soomaali anigana ay tahay 1:00 barka duhurnimo maalin walba waa casharo free ah waxaan isku dayaynaa bisha Ramadaan inta la gaarin inaan soo saarno arday Soomaaliyeed oo dhisi karta website from scratch oo zero ka soo saari doonto ayagoo wiligood barnin coding iyo IT iyo waxyaabahaas wax la mid ah marka taasaan isku dayaynaa goolkeena haddana waxaan rajaynayaa labadii biri aad joogteen inaad at least website wax ka fahanteen maxaa idinkaga soo baxay labadii biri aad joogteen Somali Innovation at least maxaa faa'iido wax badan aan fahanay to website wax la fahanay anaga marka website wax la aqoonin iyo u maleynayay inay wax adag tahay in website la sameeyo oo kaliya qof oo ku takhasusay fildigan oo ma IT wax ka yaqaan kaliya oo sameyn karo laakiin hadda waxaa noo cadaatay inaa qof walba uu sameyn karo oo aad u fududahay oo adigana noo fududeysay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano oo aan sameyno website iyo wixii la mid ah okay waa mahadsan tahay asxaabta kale maxaad ka faa'iideen labadii biri hadda aad joogteen casharada soo xadirteen qofkii rabo inuu hadlo Zoom-ka codku u furan karaa ama Clubhouse-ka ani Clubhouse-ka rabaa inaan mataqaan ustaadka ka hadlo horta markii ugu horeyso ku soo biiray waa maanta aniga laakiin website aniga xataa waxaan awood u yeeshay inaan kaliya dhiso marka waxaan qaaday koorsay oo website-ka la xiriirto oo ku saabsan oo linkiga website-ka lacanka linkiga laga barto kursooyinka ayaan mataqaan hore uga bartay marka waa dhisay website waa sameeyey maybe inay kala duwan yihiin marka aniga waxaan doortay markaas WordPress caadi oo normal aan sameeyey wordpress.com caadi aan habeeyey marka kana waxaan isku dayaa insha Allah in wax badan ka faa'iido kasto maanta soo biyo insha Allah waxyaabaha Clubhouse soo galno kale waxa kamid ah maadaama de Clubhouse screen share la sameyn karin casharada Zoom ku bixinaa so dadkii Clubhouse soo galo si aan u sheegno inay tagaan Somali Innovation Facebook group-kooda Facebook group-ku markay galaan ay linkiga u helaan Zoom-ka casharadan waa free waxa kaliya lagaaga baahan yahay waxa waa inaad soo xadirto that's it iyo energy alle imaatid marka taasaan u sameyn insha Allah qofkii rabo dadka Clubhouse ku jiro inay casharada soo socdo la xiriiraan waa easy Instagram-ka nagala soo hadal ama Facebook waan heli doontaa insha Allah